Warar TV kusoo dhawaada warbixin ku saabsan Al-Shabaab oo fariin hanjabaad u dirtay madaxweynaha la doortay ee wadanka Kenya iyadoo ugu baaqday in ciidankiisa uu kala baxo gudaha Soomaaliya haddii kalena uu wajihi doono in weerarada Al-Shabaab ee gudaha dalka Kenya ay sare u sii kici doonaan. dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay ugana hadlay doorashada dalka Kenya ee dhawaan soo gabagabeeyay waxaana ururka Al-Shabaab uu u soo bandhigay madaxweynaha wadanka Kenya ee la cusub oo aan weli la dhaarinin ninka lagu magacaabo William Ruto in uu ciidankiisa kala baxo gudaha Soomaaliya. war-saxaafadeedka soo saartay Al-Shabaab oo ku saabsanaa doorashada dhawaan ka dhacday Kenya ayay ku sheegeen in xukuumadda Nairobi ay haysato fursad ay dib u eegis ugu sameyn karto go'aanadeeda siyaasadeed ee arrimaha dibadda iyo ciidamada dalkaas ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya. war ka soo baxay Al-Shabaab oo u muuqday hanjabaad ku socota Kenya ayaa lagu sheegay in siyaasiyiinta dalkaas ay weli ku adkeysanayaan la dagaalanka Al-Shabaab iyagoo ku eedeeyay in ay fulinayaan danaha dalalka reer galbeedka isla markaana ay khatar gelinayaan nolosha muwaadiniintooda iyo danta dalkooda. Al-Shabaab waxay sheegeen in Kenya oo 11 sano ciidankeedu joogaan gudaha Soomaaliya aysan weli gaarin hadafkii ay lahayd. hadafkaas ma aysan cadeynin Al-Shabaab waxaanay xuseen in ciidamada Kenya ay ku go'doonsan yihiin xeryahooda isla markaana aysan awoodin in ay fuliyaan howlgallo wax ku ool ah oo ka dhana dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo xiriir la leh urweynaha Al-Qaacida waxay sheegtay in ay kordhisay weerarada argoosiga ee ay ka fulinayaan gudaha wadanka Kenya waxaana isxustay in dowladda Kenya ay ku guuldareysatay in ay sugto ammaanka dalkaas oo hadda aad ugu nugul weerarada marka loo eego sidii amnigu ahaa sanadkii 2011. waxa ay ciidanka Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya ku eedeeyeen in ay geysteen xasuuqa ka dhanka ah dad aan waxba galabsan, laynta xoolaha, kufsiga dumarka, afduubka, burburinta magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo sidoo kale gaboodfallo kale iyaga oo ciidanka ku gambanaya la dagaalanka argagixisada. waa sida ay sheegeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waxay sheegeen haddii dowladda cusub ee la doortay ay ku sii socoto go'aankeeda dagaal iyo duulaanka in weeraradu aysan keliya ku ekaan doonin ciidanka KDF ee ku sugan gudaha Soomaaliya ee beegsigu ku xoogaysan doono gudaha wadanka Kenya, taas oo loo fasirtay hanjabaad la mid ah kuwii hore ay Al-Shabaab ugu diri jirtay dowladda Kenya. war-saxaafadeedka oo ku qornaa afka Ingiriisiga kana soo baxay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab qaybtooda warbaahinta ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay haysato fursad kale oo suuragelin karta in ay dib u eegis ku sameyso siyaasadda arrimaha dibadda iyo sidoo kale duulaanka militari ee gardarada ah ee ay ciidankeeda ku gelisay Soomaaliya sanadkii 2011. waxaase haddii ay khasaariyaan fursadaas loo sheegay in ay cuquubadeedu noqon doonto mid ka adag intii hore. doorasho si adag loogu loolamay oo wadanka ka dhacday kadib, Kenya waxay maanta taagan tahay dariiq kala bayr ah xilli ay Kenyaatigu isku diyaarinayaan in ay xafiiska keensadaan madaxweyne cusub. waxa ay mar kale haystaan fursad ay ku muraajacayn karaan go'aanada siyaasadooda arrimaha dibadda iyo raadadka ka dhalanaya go'aanada uu ugu horeeyo duulaanka sharci darrada ah ee ay Kenya ku qaadeen Soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay Al-Shabaab. musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee wadanka Kenya ayuu sheegay war-saxaafadeedku in muddadii lagu jiray ololaha doorashada aysan dadweynaha u soo bandhigin ajendayaasha uga aadan amniga faraha kasii baxaya ee dalka Kenya iyo sidoo kale duulaanka sii dabadheeraaday ee ay ciidankooda ku joogaan gudaha Soomaaliya, taas oo ay ka turjumayso in weli ay ku sii adkeysanayaan wadada dagaalka si ay u meelmariyaan danaha asaayadooda reer galbeedka iyagoo halis gelinaya nolosha muwaadiniintooda, mudnaanta ugu horeysana siinaya masaalixda reer galbeedka ayaa sidoo kale lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay Al-Shabaab ee loogu baaqay dowladda cusub ee wadanka Kenya in ay go'aan ka gaarto mustaqbalka ciidankeeda ku sugan gudaha Soomaaliya. muddo 11 sano ah ayaa laga joogaa markii ay Kenya duulaanka ku soo qaaday Soomaaliya. ilaa maantadana Kenya kuma guuleysan wax uun ka mid ah ahdaaftii asaasiga ahayd ee duulaanka. ciidamada militariga Kenya waxay ku go'doonsan yihiin saldhigyadooda, kama soo baxaan godadka ay ku gabadaan
xabadana uga gambadaan mana awoodaan in ay qaadaan weerar ka dhan ah al-shabaab, halka dhanka kale mujaahidiintu sii laba jibaareen weeraradooda aargoosiga ah ee ka dhacaya gudaha Kenya, ayna fuliyeen boqolaal weeraro abaabulan oo lagu beegsaday ciidanka Kenya iyo xarumahooda, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ku qornaa afka Ingiriisiga, kaas oo looga hadlayay isbeddelka siyaasadeed iyo doorasho ee dalka Kenya ka dhacay iyo isbeddelka dhanka hoggaanka ee madaxweynaha cusub ee Kenya oo talada kula wareegay. War-saxaafadeedka ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in markii dowladda Kenya ay ku guuldareysatay sugidda amniga waddanka in ay xukuumadda maciin biday in ay afka u qabato warbaahinta si xaqiiqooyinka argagaxa leh ee laga soo gudbinayo dagaalada looga qariyo dadka Kenyaatiga ah, loogana hortago in ay dadku isweydiiyaan su'aalaha xasaasiga ah ee ku saabsan duulaanka Soomaaliya, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Waxay sidoo kale dowladda Kenya diiday in ay qirato tirada askarta looga dilay Soomaaliya, kuwaas oo ilaa maanta aan la garanaynin tiradoodana la ogeyn. Intaas waxaa sii dheer in askartii u dhimatay difaaca dalkooda sida la sheegay lagu aasay xabaalo aanan la garanaynin, halka maxaabiistii looga qabtay dagaalada meel cidla ah looga dhaqaaqay oo aanay jirin dowlad ka daba timid. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Kenya ay sii laba jibaartay cadaadiska ka dhanka ah dhalinyarada muslimiinta, iyadoo kula kacaysa afduub iyo dilal sharci darro ah, iyadoo ku hoos gambanaysa la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada, waxaana xarakadu baaq muhiima u jeedisay dhalinyarada Kenyaatiga ah ee muslimiinta ah, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dhaqdhaqaaqa al-shabaab. sidoo kale war-saxaafadeedkan ay soo saareen al-shabaab waxaa lagu sheegay waxaan muslimiinta Kenya ku boorinaynaa in ay difaacdaan dhibaatada ay dowladda Kenya ku hayso iyaga iyo qoysaskooda. Aamustiinana waxay sii xoojinaysaa inuu sii socdo dulmiga lagu hayo walaalaha kale ee Kenyaatiga iyo Soomaalida ah. Waa inay yeeshaan istiraatiijiyad wada shaqayn oo ka dhan ah gaalada, ayna soo jawaabaan ama soo ajiibaan baaqa alle, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka al-shabaab. War-saxaafadeedka ayay al-shabaab fariimo ugu jeediyeen dowladda Kenya iyo shacabkeeda, waxaana lagu yiri dhowr jeer ayaanu idinkaga dignay in duulaanka sharci darrada ah ee aad ku soo qaadeen Soomaaliya iyo siyaasadaha dulmiga ku dhisan ee dowladihiina ay yeelan doonaan cawaaqib halis badan. Iminkana waxaan idiin sheegaynaa in inta ay dowladiina sii wado duulaanka ka dhanka ah dhulalkeena sii joogteynayso dulmiga ka dhanka ah walaalaheena muslimiinta, way sii socon doonaan weerarada ka dhanka ah gudaha dalkiina. Ogaada inaan gardaradiina ka difaaci doono dhulalkeena iyo dadkeena. Waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa fulinta weerarada ka dhanka ah magaalooyinkiina intaba xukuumaddiina ay haysato dhulalka muslimiinta, ayaa lagu yiri bayaanka. Waxaa kale oo lagu sheegay haddii dowladda cusub ee la doortay ee Kenya ay ku sii adkaysato dariiqa dagaalka iyo sii socoshada duulaanka gardarada ah ee Soomaaliya, al-shabaab ma beegsan doonto oo kaliya ciidanka kusoo duulay waddanka, balse waxa ay weeraro ka fulin doontaa xudunta iyo xarumaha waaweyn ee Kenya. Waxaana ay sidaasi ku sheegeen al-shabaab weerarkooda ama war-saxaafadeedkooda, iyaga oo sheegay in ay dowladda Kenya kula dagaalami doonaan gudaha dalkooda. Kenya waxa ay sanadkii 2011 si aan sharci ahayn ciidankeeda uga soo gudbeen gudaha Soomaaliya, iyadoo aan ogolaansho ka haysanin qaramada midoobay, dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika midkoodna, isla markaana aan tixgelinin xeerarka caalamiga. Markaas oo ay ku marmarsiyootay in ay al-shabaab ka saarayso ama ka fogeynayso xuduudeeda, sidoo kalena koonfurta Soomaaliya ka saarayso kulana dagaalamayso. Laakiin markii ay al-shabaab iyo Kenya dagaalameen, Kenya ciidankeeda badda iyo kuwa militarigu waxa ay qabsadeen magaalada Kismaayo oo kaliya, halkaas ayna ku ekaadeen iyada oo gobolada koonfurta ee inta badan ay gacanta ku hayaan al-shabaab. Waxaana madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto oo aan weli xilkaas loo dhaarinin laga warsugayaa go'aanka uu ka qaadan doono siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Kenya, oo markii hore lagu sheegay in ciidanka Kenya ay baaqi ku sii ahaan doonaan gudaha Soomaaliya, isla markaana sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, iyadoo xukuumadda uu hogaaminayay Uhuru Kenyatta ay iska diiday in ciidamada waddanka Kenya laga saaro gudaha Soomaaliya si dadka Kenyaanka ay uga nabadgalaan weerarada al-shabaab.
kulan wanaagsan daawadayaal, halkani waa Warar TV. kusoo dhawaada warbixin ku saabsan Somaliland oo sheegtay in xaaladeeda nabadgelyo ay tahay mid sii baaba'aysa, isla markaana mas'uuliyadda dusha ka saartay ururada mucaaradka, iyadoo ururada mucaaradka qaarkoodna ay sheegayaan in ay soo dhaweynayaan go'aanka guddiga dhexdhexaadinta, sidoo kalena xabsiga laga sii daayay boqolaal qof oo mucaarad ah, kuwaas oo doorashooyinkii ka dhacay ama banaanbaxyadii ka dhacay Hargeysa ee lagu dalbanayay doorashooyinka loo xirxiray. Haddii aan ku hormarno, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Somaliland ayaa waxa uu sheegay in dad fara badan oo reer Somaliland ay mas'uul ka yihiin amni darrada sii xumaanaysa ee gudaha Somaliland, isagoo sheegay in nabadgelyada lagu ciyaarayo. Xukuumadda Somaliland ayaa dad ayna carabaabin ku eedeysay in ay dowladaha shisheeye u gudbinayaan warar been abuur ah oo sheegaya in Somaliland burburayso, taas oo ay qayb ka yihiin dad gudaha Somaliland ku sugan, sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi Somaliland. Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay in ay jiraan dad dowladaha shisheeye ugu sheekeeya in Somaliland nabadeedu burburayso oo dowladnimadii Somaliland gabaabsi ku jirto. Dad badan oo reer Somaliland ah ayaa gadaya ama ajnabiga u sheegaya Somaliland way burburaysaa, Somaliland xaaladeedii dowladnimo way sii gabaabinaysaa, Somaliland xaaladeeda nabadgelyo way baaba'aysaa. Waxaa loo baahan yahay markaa in dowladaha shisheeye ay faragelin Somaliland ku sameeyaan, ayuu yidhi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo warbaahinta la hadlay. Wasiirku ma carabaabin cidda uu eedeynta u jeediyey, laakiin wasiir Kaahin ayaa toddobaad ka hor mucaaradka ku eedeeyay in ay safiirada dowladaha shisheeye ay ku yiraahdeen qalalaase rida si aanu idinka iyo xukuumadda idin kala dhex galno. Wasiirka kama dambaystiina waxa uu sheegay in waxa keli ah ee ummadda ka dhexeeya ilaalinteeda la isku raacsan yahay ay tahay nabadgelyada, sidaas darteedna loo baahan yahay in mucaarad iyo maxaafadba la dhowro amniga deegaanada Somaliland si dadka deegaanadaas ay nabad ugu wada noolaadaan. Dhanka kale, xisbiga wadani ee mucaaradka Somaliland ayaa soo dhaweeyay talada ay soo jeediyeen guddiga isku xilqaantay xalinta khilaafaadka doorashooyinka Somaliland. Xogayaha xisbigaasi Khadar Xuseen Cabdi oo warbaahinta la hadlay sheegay in ay aqbalayaan soona dhaweynayaan soo jeedinta guddiga si ay u ilaaliyaan sumcadda iyo wadajirka deegaanada Somaliland. Annaga oo rabna in aan dalkeena xal siyaasi ah laga gaaro mushkiladaha ka taagan si sumcadiisa, wadajirkiisa iyo horusocodkiisaba loo ilaaliyo oo loo dhowro. Waxaanu soo dhaweynaynaa soo jeedinta guddiga ganacsatada ee Somaliland, ayuu yidhi Khadar. Madaxweynaha ayuu ugu baaqay in uu taageero soo jeedinta guddiga. Waxaanu ku boorinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddaba in ay carqaladeynin ama aanay falshilinin iskudayga ugu dambeeyay ee ay guddiga ganacsatadu isku dayaan in arrimaha taagan xal loogu helo, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in ay ka mucaarad ahaan ka warsugayaan golayaasha sharci dejinta oo guddidu ay ku soo codsiiyeen soo jeedintooda si ay salka uga dhigaan sharcigii meelmarin lahaa. Weli xukuumadda Somaliland kama hadlin mowqifkeeda ku aadan soo jeedinta ganacsatada ee soo jeedinaysa hal israaciyo doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda, waxaana jira ururo dhowra oo ilaa hadda ka hor yimid soo jeedinta, taas oo ka mid ah caqabadaha hadda ka jira deegaanada Somaliland. Somaliland ayaa xabsiga kasii daysay dhowr iyo 20 qof oo loo qabqabtay banaanbaxyo dhowaan ka dhacay Somaliland, kuwaas oo dad rayid ahi ay ka qayb galeen, iyadoo oo dad kala sii daayay ay ku jiraan gabdho ku xirnaa magaalada Hargeysa, qaarkoodna iyaga oo aroos ah oo banaanbaxa ka qayb galayay lasoo qabtay lana xiray, islamarkaana hadda dib loo sii daayay. Xukuumadda Somaliland ayaa dad loo xiray mudaharaadkii 11 bishan ka dhacay magaalada Hargeysa xabsiga kasii daysay. Waxaa xorriyadooda dib u helay 49 qof oo loo xirxiray mudaharaadkii xisbiyada mucaaradka Somaliland ka dhigeen 11 bishan Agost magaalada Hargeysa. Cuqaal iyo waxgarad ayaa ka howlgalay sii deynta 26 qof oo ku xirnaa xabsiga Mandheera iyo 23 gabdhood oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Gabiley, waxaana lagu sii daayay warqad codsi ah oo cuqaashu u qoreen taliyaha ciidanka booliska Somaliland, ninka lagu magacaabo Maxamed Aadan Saqadhi.
dabagale. Xogayaha xiriirka golaha iyo degmooyinka ee xisbiga wadani Maxamed Cabdulaahi Jaamac Bookh oo ka qayb galay sii deynta hablaha ku xirnaa xabsiga Gabiley ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay sii deyntooda. Dhammaan cid allaale iyo ciddii ka qayb qaadatay hablahan soo deyntooda ayaanu u mahad celinaynaa. Maanta halkan wax kale kama oranayo. 49 qof ee la sii daayay ee u badnaa Mandheera ku jireen muddada 23 kalena laga sii daayay xabsiga waxaanu ugu qayb galaynay farxadooda iyo sii deyntooda. Dhanka kale salaadiinta iyo cuqaasha ka howlgashay sii deynta dadkaasi xirnaa ayaa u mahadnaqay xukuumadda iyo taliyaha booliska iyo sidoo kale shacabka Gabiley oo ay sheegeen in ay si wanaagsan ula dhaqmeen una soo dhaweeyeen dadkaasi gabdhaha u badnaa ee ku xirxirnaa xabsiga. Mudaharaadka shacabka laga soo xiray ayaa ahaa kii 11 bishan Agost uu mucaaradka ku baaqay, islamarkaana ujeedadiisu ahayd in xukuumadda ay xal ka gaarto ama go-aanka madabeysa ka gaarto doorashooyinka Somaliland oo doodoodu ay tahay mid wali la isku haysto meelna aan la saarin. Waxaa jira guddi dhexdhexaadin oo isku dayaya in lasoo afjaro muranka siyaasadeed ee ka taagan deegaanada Somaliland, kaas oo ay mucaaradku sheegeen in doorashada ay tahay in lasoo afjaro iyada oo waqtiga doorashada dib u dhacay, islamarkaana guddiga dhexdhexaadintu ay shaaciyeen in muddo 6 bilood oo farsamo ah dib loo dhigi karo doorashooyinka Somaliland. Xubnaha mucaaradkuna waxay sheegeen in ay soo dhaweynayaan tallaabada iyo go-aanada ka soo baxay guddigaasi dhexdhexaadinta, laakiin waxa ay ka digeen in uu Muuse Biixi Cabdi ka hor yimaado go-aanka guddiga oo hadda loo gudbinayo xubnaha golaha sharci dejinta ee Somaliland, kuwaas oo ujeedadoodu tahay in ay sharci ka dhigaan soo jeedinta guddiga dhexdhexaadinta ee kulamada siyaasadda. Waxaana qorshaha uu yahay in doorashada Somaliland ee madaxtooyada iyo tan furashada ururada siyaasadda hal mar la isla qabto muddo 6 bilood ahna dib loo dhigo dhammaan qabanqaabada la wada galo. Waxaana arrinkaasi diidan qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo doonaya iyagu in doorashada ururada furashadoodu ay kasoo hormarto tan madaxtooyada. Laakiin xubnaha ururada mucaaradka ama xisbiyada hadda jira ee deegaanada Somaliland ayaa iyaguna doonaya in madaxtooyada doorashadeedu soo hormarto kadibna doorashada furashada ururada siyaasadeed la aado, maadaama sida ay sheegayaan ay tahay doorashada mid dastuuri ah. Sidaas darteedna 13 bisha November ay tahay maalinta ay tahay in ay qabsoonto doorashada madaxtooyada Somaliland. Xubnaha mucaaradka ah ee xisbiyada siyaasadda ee hadda diiwaan gashan ayaa waxa ay sheegeen in wixii ka dambeeya 13 bisha November ee soo socota aanay Muuse Biixi Cabdi u aqoonsan doonin in uu yahay madaxweynaha Somaliland, islamarkaana taasi ay sababi karto in ay rabshado ka dhacaan deegaanada Somaliland kuwaas oo dhibaatooyin kala horseeda, iyagoo ugu baaqay Muuse Biixi Cabdi in uu la shaqeeyo soo jeedinta guddiga dhexdhexaadinta ee Somaliland oo soo jeediyey in doorashada dib loo dhigo muddo 6 bilood ah kadibna lasoo gabagabeeyo doorashooyinka iyo sidoo kale ururada siyaasadda furashadooda oo hal mar la isla qabto, taas oo ay xubnaha mucaaradka ku doodayaan. Laakiin xukuumadda uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi ayaan weli ka hadlin arrinkan, islamarkaana sheegaya in aanay go-aan ka gaarin iyada oo laga warsugayo Muuse Biixi Cabdi tallaabada uu qaadi doono. Xubnaha mucaaradka ee xisbiyada wadani iyo UCID ayaa ugu baaqay Muuse Biixi Cabdi in uu sida ugu dhaqsiyaha badan ku aqbalo soo jeedinta guddiga dhexdhexaadinta ee ganacsatada, iyada oo xubnihii dhexdhexaadiyaashii hore ee odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale hogaanka golaha guurtida ee Somaliland lagu fashilmay in la hirgeliyo kadib markii Muuse Biixi Cabdi uu ka biyadiiday soo jeedintooda, islamarkaana uu beegsaday maxkamadda dastuuriga ah ee Somaliland, taas oo xubnaha mucaaradka iyana ay sheegeen in aan la gaarin maxkamadda go-aanka ka gaarista lahayd ama waqtigeeda, iyaga oo sheegay in faragelin ay noqonayso haddii maxkamadaha sare ee Somaliland ay arrinkan ku lug yeeshaan, iyaga oo sheegaya in aan la gaarin waqtigii ay xubnahaasi doodooda u gudbi lahayd maxkamadda sare ee Somaliland. Waxaana ay soo jeediyeen in golaha guurtida iyo sidoo kale golaha xeerdejinta ee Somaliland ee loo yaqaano golaha wakiilada ay go-aan ka gaaraan arrinkaas, iyada oo khilaafkana uu yahay mid weli taagan, islamarkaana banaanbaxyo arrinkaas
looga soo horjeedo ay xubnaha mucaaradka ahi ka wadaan deegaanada Somalilan dhowr jeer oo horena dad loo xirxiray.